waxay inta badan ka bilaabataa zina uu bilaabay maalin uu zinaystay ka bilaabataa qofkaas waxa ciqaabtaas kamid ah ikhwaani hadla yaabi doontaan zinadu waa deyn waxa laga wadaa hadaad nin tahay oo zinaysato waxay ka go'an tahay gabadhaada iyo xaaskaaga iyo reerkaaga waa deyn marka inta deymood oo qabtid nin walba u fiirso way ka go'an tahay ولذلك waxaa sugan nin waxa jiray baa leeyahay dadkii hore kamid ah oo saalix oo aad u wanaagsan waa qiso kitaabada ay culimadu ku qoraan marka nin baa biyo u keena nin saaqi ah oo nimankan shaqeeyo biyaha dhura baa biyo u keena ciduu biyo u soo aroora ninkan culimada ah saalix ah waa nin wanaagsan culimayaan dhihin albaabku ka furaa markuu soo ninka biyaha keeno biyuhu ka soo qaadaa gurigu geeyaa weelashu uu ka shubtaa weelashu u celiyaa maalintii dambe ninkii wuu baxay suuqu aaday ninkii baa biyihii keenay xaaskii marka intay u baxday bay biyihii ka soo qaaday marka wuu fahmay inuu ninkii joogin intuu xaaskii ka soo daba orday oo uu xoog ku qabtay buu dhunkaday xaaskii markaasay waxay tiri subxaana allah maxaad samaysay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun bay tiri ninkii wuu cararay markuu cararay ninkii gabadhi way wareertay waxay weligeed ku fakerin weligeed ay samaynin weligeed aan ka dhicin oo weliba xoog ah laakiin waxay ahayd qof caqli badan ninkeedii baa hadhow yimid ninkii markuu soo galay kuleetay ku dhigtay waxay tiri yaa zawji maadaa facalta markaad iga maqleen maxaa samaysay waxaa ma samayn xaggaan tagay suuqaan tagay odayaal baan shaah la soo cabay xaggaan ka baxay waxay tiri billaahi calayka waxaa samaysay ii sheeg ma waxaa ma samayn war runta ma ii sheegaysaa waa oday dembi weyn galay guriga albaabka lagu qabsaday kuleetiga markaasuu yidhi wallaahi haddaa sheekadu ugu fahmay inay wax jiraan wuxuu isiisho waa lagaa soo war sheekooday oo waxbaa la soo sheegay suu yidhi suuqaa dhex mari jirayoo maalin walba markaan suuqa dhex marayo indhahan laabi jiray hoos baan fiirin jiray maanta anoo suuqa dhex mariyo baan waxaan arkay buu yidhi gabar aad u qurux badan oo dukaan ka soo jeeda markaasaan intaan u galay oo islooy baan dhunkaday markaasaan ka cararay markaasay waxay tiri anaa haddee layga gooyo ogow dhunkashadii ul fiirsada waxaad ogaataan ikhwaani suuqa haddaad naag ku dhunkato gurigaagaa lagu dhunkan xaaskaaga iyo carruurtaada ogow gabdhahaaga haddaad suuqa naag ku daawato ku fiiriso gabdhahaaga iyo xaaskaagaa la daawan waa dayn maxay dhihi jireen saxan ku gud saan ku gud haddaad dhunkasho ku istaajiso waa la dhunkan haddaad zinaysato waa la zinaysan haddaad taabato waa la taaban adugu ama badso ama yarayso walidaalika ilahi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زان نينك الزنيستين ما قورصة ناق أن زنيسنين ناقت الزنيستين ما قورصة أن زنيسنين وحيابها مجتمع كدع يوفير صدا عرورته وحا كدع يوفير صدا دادك وحا كدع يوفير صدا انت بدن وادين أي ريالكو قبان وي قف ريالك كم إذا هدبك سو جيدي وسو جيدي مرك الله إلهي أقعب عرورته هذا haddaad xifdidid dumarka iyo gabdhaha raggu dhaleen raggu way xifdin gabdhahaaga iyo xaaskaaga ilaahay baa kuu ilaalin zinadu marka waa dayn waxaa intaas ka daran waxaa dhici karta dadka badankoodu inay dhahaan maba kala jeceliba haddaa anigu zinaysa maxaa iga galay naagtan hadday zinaystay haddii kale maxaa iga galay waxaa dhici karta inayna wax weyn ba la'ahayn dadka qaarkood ama gabadhiisa inayna wax weyn ba la'ahayn isaga macsiyadaa uu fiirsanayaa u daran waxaad marka dadkaasoo ogaataan zinadu waxay sababtaa jirooyin xunxun oo ilaahay ciqaab u kaaga dhigay meel kiimaadaan lama yaqaano walidaalika nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiidkii abu daawud ay wariyay oo xasanka ahaa lam tadhar alfaaxishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim alawja'u wa ta'un wal awja' haday dadka ku dhex faafta zinadu waxa ilaahay ku salladaa cudurro weligood aan la arag weligood aan la arag waxaad maqlaysaan aidis waxaad maqlaysaan jirooyin xunxun waxaad maqlaysaan kansar waxaad maqlaysaan cudurro aan weligood la maqli jirin zinadaa keenta haddaad markay zinaysatid waxaad ogaataa horta reerkaagana waa laga gudi adigana way kaa go'an tahay
waxaa intaa ka sii daran qofka zinaysta maalinta uu dhimanayo oo naftu ka baxayso haddii zinadaa uu ku dhinto waxaa dhici karta ilaahay inuu tawxiidka garab mariyo sababtoo waa dembi aad weyn waa faaxisho waxyaabaha sugan waxaa ka mid ah nin ka mid ah muslimiinta ayuu dadka hore ka mid ahaa isagoo ku dawaafaya kacbada baa layidhi iyo wuxuu arkay nin kacbada derbigeeda ku dhegan dadku kacbada derbigeeda waxay ku dhagaan markay aad u baqayaan inta badan dadka caamada ah ama uu dembi weyn sameeyo markaasuu wuxuu leeyahay allaahuma akhrijnii min addunya saaliman ilaahow anoo adduunka nabad qaba oo muslima iga bixi allaahuma akhrijnii min addunya musliman ilaahow anoo muslima adduunka iga saar maantana intaasuu ku celcelinaya ilaahay oo anoo muslima adduunka iga saar markaasuu waniyo maxaa kugu dhacay duco kale ma akhrisatid markaasuu waxa igu dhacay haddaad ogaan lahayd duco kale ma aada ku fakartayna waxaad dhihi lahayd ilaahow islaamnimo igu dil oo maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi waxaan lahaa laba walaalo ah oo labaduba masaajid ka aadaamaan midkood baa wuxuu aadaamayay intaas oo sano mu'adin la yaqaano masaajidka ka aadaama waxaa dhacday bii markuu dhimanayey ayuu wuxuu yidhi kitaab qur'aan ii keena dadku way farxeen maasha allah malaha qur'aan buu akhrin doonaa markii loo dhiibay intuu kitaabkii saas u qabtay buu wuxuu yidhi ogaada kan iyo waxa ku qoran waan ka gaaloobay ma aaminsani saacaddaa laga bilaabo markii hore kaana yusalli binnaas wuu aadaami jiray dadku tujin jiray qur'aan buu akhrin jiray waan ka gaaloobay dadkii dhan way ooyeen wuxuu yidhi walaalkaygii kale oo asna masaajidka kala aadaami jiray oo booskii galay baa markuu dhimanayay sidoo kale yidhi arrintii aan baaray buu yidhi waxaan ogaanay bii labadaas walaalood waxay ku imtixaanaayeen buu yidhi dumarka iyo cawradooda baa lagu imtixaamay ma joojin karaan waa ragga hadda dhallinyarada ah oo maanta o dhan naaqaawan inuu fiirsanayo maahna aan joojin karin internetka markuu gala naaqaawan fiirsanaya telefoonkiisa markuu gala naaqaawan fiirsanaya sawirro naaga qaaqaawan meesha uga buuxaan oo maanta o dhan waxaas fiirsanaya gabadha waxaas fiirsanaysa ogow taasaa ku sugaysa walidaalika waxaa kale oo sugan oo taas ka sii daran nin waxaa la yidhi nin ka mid dadkii horaa wuxuu arkay oo qisadan dhegaysta isagoo socda waa gurigiisa agtiisa isagoo maraya iyo wuxuu arkay gabar qurux badan oo ku soo socota wuu istaagay wuu sugay markaasay waxay tidhi xaggee loo maraa xamaamka minjaab xamaamka waa meelaha steam roomka dadku ay ku qubaystaan oo ay isku qurqurxiyaan markaasuu yidhi ma ku tusaa say tiri haa suu yidhi kaalay su u wadu gurigiisa geliyey waa halkaana galbiyo gurigii markay gashay waa albaabkii ku xirta markaasuu yidhi xamaam meesha ma yaalle waxaan meesha kuu keenay inaan zina kugu sameeyo markaasay gabar caqli badan bay ahayd markaasay tiri ma intaasba waaba waxaan raadinayeyba jaanis baaba siisayba markuu soo ag fadhiistay oo sheekadii u macaanaysay oo ay xoogaa la waday ayay waxay tiri gaajo xun baa hayse cunto ma taallaa markaasuu maya laakiin makhaayaddan kaaga raadinaya say tiri cunto badan ii soo gad gaajo xun baa hayse uu orday ninkii isma oga daf